kulanti wacan saaxiibayaal meel walba aad joogtaan magacayga waa khaliiji sida hore idinkugu sheegaba maanta waxaa bilaabi doonaa koorsooyinka lagu magacaabo Dutch for Anfänger Jarmalka loogu talagalay dadka bilowga ah waxaa ka bilaabi doonaa qaybta koowaad ee luqadda ee A1 daawasho wacan ugu horeyso aad ka qayb gashid koorsada A1 waxaa laga yaabaa inaad sabuurad ku aragtid wax lagu magacaabo pronomen oo ah magac yeelo iyo nomen oo ah magacyo pronomen oo ah magac yeelo iyo nomen oo ah magacyo waxa ay leeyihiin afar qaybood oo lagu dhiso jumladaha Jarmalka pronomen oo ah magac yeelo waxa uu leeyahay nominative accusative dative iyo genitive nomen oo ah magacyo waxa uu asigana leeyahay nominative accusative dative iyo genitive micnahooda dhabta ah iyo waxa ay ka kooban yihiin dhan waxa ku arki doonaa casharada soo socda laakiin marka ugu horeyso als Anfänger waxa u baahan tahay kaliya inaad baratid in pronomen oo ka kooban yahay pronomen nominative pronomen accusative dative iyo genitive casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay kaliya pronomen nominative accusative dative iyo genitive nomenka waxa ku soo qaadan doonaa casharada kale ee soo socda personal pronomen oo ah personal pronouns magacyaalada waxa uu ka kooban yahay personal pronomen nominative personal pronomen accusative iyo personal pronomen dative personal pronomen nominative marka maqashid waxa laga yaabaa inaad waxyaabo kale waaweyn ka fikirtid laakiin wax kale ma ahan waa waxa hore u soo aragtay oo ay ka mid yihiin ish du cs iyo cc ish aniga du adiga asiga c ayada s shayga iyo idinka c iyo c dadka badan inta badan way ku wareeraan laakiin Jarmalka sida weynta ah oo esta marka calaamad weynta loo qoro waxay u taagan tahay qofka xushmeynaysid booliska xafiiska dadka fadhiya iyo qof Allah xushmeynaysid c the kaleetood waxay u taagan tahay they ayaga marka sawirka dhan wuxuu kaliya ku saabsan yahay waxay tahay nominative marka si aan nominative ka si fiican ugu faano waxaa qasab noqotay inaan laba asbaab kala soo qaadano si aan si fiican ugu sii sharaxno sida nominative u shaqeynayo signka oo ah verb to be verb caawiye waxa uu u sii kala baxaa qaybtan inta ku qoran oo markii aad ayaga isticmaalaysid ish sign do sign ma dhehaysid oo waxaa isticmaalaysaa ich bin aniga waxaan ahay I am oo kale toda la mid tahay m-ta ingiriiska meesha ku taagan tahay camal u taagan yahay oo aydan ah bin ich bin du bist adiga waxaa tahay ist asiga wuxuu yahay c ist ayada waxay tahay s ist shayga wuxuu yahay iyo side idinka waxaa tihiin c qofka xushmeynaysid iyo c ayaga zin waxa ay yihiin marka signta mar walba waxaa lagu xifdiyaa sida ay hadartaan u qoran tahay oo mar walba ayada isma bedelayso sidaana u safantaa mar walba marka waxaa kula tali lahaa inaa sida hadartaan u qoran tahay aad kula xifdisid qaybta kale u soo wareegno oo ah verbka caadiga ah trinken oo cabid ah ish trinke markii aad ish isticmaalaysid oo du isticmaalaysid verbka siyaabo kala duwan u kala baxaya oo sida ingiriiska camal ma ahan oo sidiisa u taagnaanayo marka ish isticmaalaysid waa ina ent iska dhaaftid oo aad verbka e u dambaysiisid marka du adiga isticmaalaysid waa ina e iyo ent iska turtid oo aad kaliya qaadatid st markii aad cs isticmaalaysid waxa u baahan tahay inaad ent turtid oo aad qaadatid t markaad iya idinka isticmaalaysid waxa sidoo kale u baahan tahay inaad ent turtid oo aad qaadatid t marka c oo qofka xushmeynaysid iyo c ayaga aad isticmaalaysidna waxaad soo qaadanaysaa verbka asalka ah sida uu yahay marka nominative-ka marka isticmaalaysid labada verb isku xigto hal mar hal sentence kuma isticmaali kartid oo ma dhihi kartid ich bin trinke ma dhihi kartid waxaa ku furnaa isticmaashid hal mar sign-na u isticmaashid oo aad ich bin bla 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 ama ich trinke bla 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 tusaalooyina meesha ku diyaarnay si aad si fiican ugu sii fahamtid ich bin oo ah signta soo qaadanay ich bin aniga waxa ahay Farax waa Farax oo macnaheedu tahay magacayga waa Farax du bist adiga waxa tahay Lehrer macallin iyo side idinka waxa tihiin Schüler arday haddii marka signka soo shaqeeyo verbkana taas mid lamid ah u shaqeynaya waxaa ku soo qaadanaysaa tusaale ahaan trinke ich trinke Kaffee waxa cabaya Kaffee du gehst nach Hause
adiga waxa aadaysaa xaafadaada caadi ahaan gehin ee ka imaad meeshan oo ah aadid marka maadaama du isticmaaleyno waxay qaadatay inaan u dambeysino st du gehst nach Hause adiga waxa u socotaa xaafada asiga c ayada s iyo shayga studiert waxa ay dhigtaan medicine caafimaad sababta tida meesha usoo gasho wax kale maahan acs ta waxay qaataa mar walba t studiert medicine caafimaad oo bartaa iya idinka wohnt in Berlin waxa ku nooshiin Berlin von waxa ka imaad meeshan wohnen oo noolaashada ah marka maadaama iya idinka qaadanay waxa ku doomarsiina t wohnt in Berlin ku nooshiin c maxalinka ama qofka xishimeynaysid ama c ayaga unterrichten waxay dhigaan auf Deutsch luqada Jarmalka dhigaan marka unterrichten waa ereyga caadiga ah oo verbka caadiga ah waaye ma isbedela ayaga maadaama c iyo c soo qaadana mar walba waxay qaadanaa ayaga ereyga asalka ah ay qaadanayaan mar walba marka isku day inaad sentence kale isticmaashid inaad jumladooyin kale dhisid oo aad ku dhisaysid adigoo nominative isticmaalaysid inaad sign soo gelisid marna aad verb caadi ah oo adiga ala keensta soo gelisid markaad dictionary-ga ka rabtid inaad verb ka baartid ama ficil ka baartid waxa u baahan tahay inaad gelisid ereyga asalkiisa hore meesha ka imaanayo oo markii aad dictionary-ga trinka ka raadinaysid waxa laga yaabaa inaadan helin laakiin trinking markaa raadisid oo ent u dambeyso inuu macnihiis ereyga ku soo baxo marka haddaan nominative ka gudubno waxa u gudbayna hadeertaan personal pronomen accusative oo asigana ah qayb kaleetood oo ka mid ah pronomenka dadka inta badan waxay ku kala wareeraan farqiga u dhexeeyo nominative iyo accusative nominative-ka mar walba waa subjectiga sentence-ka waa meesha oo sentence-ka mar walba ka bilowdo oo ah ish accusative waa meesha oo sentence ku dhamaado oo ah object boqolkiiba 90 sentence-da Jarmalka objectigooda waxay yihiin accusative oo micnaheedu yahay mar walba sentence walba aragtid mich dich ihn sie es euch sie waxay mar walba imaanayaan meesha ugu dambeyso ee sentence-ka oo haddii bilowga horeetood ee ish sentence-ka bilowgiisa ay noqoto dish waxay noqonaysaa meesha u dambeysa ama accusative-ka qaybtiisa dhan waxay imaanaysaa meesha u dambeysa marka haddii lagu weydiiyo nominative-ka ish accusative-kiisa maxaa waaye waa ina adiga automatic u taqaanid in oo mish yahay waxaadaan tusaalooyin soo qaadano liebst du mich aniga ma jeceshahay ya ish oo ah nominative liebe oo ah verbka haday aan soo qaadanin soo arkaynay dish adiga ah marka dishtaas waxa waaye accusative-ka mar walba waxay noo taagan tahay meesha objectiga noo taagan tahay sentence-ka meesha oo ku dhamaada noo taagan tahay isst du den Kuchen keega ma cunta adiga ya ish esse ihn intan waxay sidoo kale u taagan tahay kuchenka oo ah in trinkst du die Milch caanaha ma cabta ya ish trinke sie ayada wacaba oo ah caanaha u taagan tahay mar walba marka accusative-ka ah mar walba waxaa ku sheegan in noo imaanayo meesha ugu dambeyso sentence-ka oo ah objectiga kauft das Buch bugum soo iibsanaya ya kauft es ha oo soo iibsanaya marka soo ku sheegay isku day sida ay yihiin na xifdisto hadii lagu weydiiyo nominative c accusative-keeda maxaa waaye waa inaa c horey ka taqaanid qaybta kale u dambeysta u gudubno oo ah personal pronomen dative wax kale maahna asigana waxa uu la ciyaaraa heerka accusative oo kale oo asigana wuxuu taagan yahay heerka ugu dambeeyo ee sentence-ka oo ah objectives-ka boqolkiiba 90 haddii aad dhaanay sentence-da Jarmalka waxay ku dhamaadaan accusative 10 kaleetood waxa ay qayb muhiim ka ciyaaraan objectiga sentence-da Jarmalka oo haddii lagu weydiiyo nominative ish dative-keeda maxaa waaye miya oo inaa hore ka taqaanid adigoo san meel kala fiiran oo aad tabeelahan sida uu yahay u xifdisid screenshot ka qaado ama boos ku qabso xifdi sida u qoran yahay u baro waxa waaye mar walba isma bedelayso sidiisoo ahaanaya mar walba haddii aan tusaalooyin kale soo qaadano oo dative ku saabsan glaubst du mir aniga mi aaminaysaa ya ha ish nominative glaube verbkii aan aragnay oo glauben ah glaube dir ha adiga waa ku aaminaya diidaas marka ish glaube du ma dhihi kartid meeshan ish glaube dishna ma dhihi kartid laakiin waxaa dhahaysaa ish glaube dir ha waa ku aaminaya adiga hilfst du aamina ma caawinaysaa ya ish helfe ihr ish helfe sie ma dhihis meeshan oo sida kuma soo celinaysa laakiin dative-ka isticmaalaysaa waxaa leedahay
ich helfe ihr ها ayada waan caawinaya hörst du uns zu aniga man dhegeysanaysaa yaa ich höre euch zu ها waa idin dhegeysanaya oshtaas marka waxay u taagantahay ayadana iya oo idinka ma dhihiis laakiin waxaa isticmaalaysaa iya taas mid lamid ah vertraust du den Leuten dadka ma aaminta nein ich vertraue ihnen nicht oo ich vertraue sie nicht ma dhihaysid waxaa leedahay ich vertraue ihnen nicht dadka ma aaminay macluumaadaada markay ku dhahdo antwortest du mir aniga ma iisa jawaabaysaa ja ich antworte ihnen Frau Meier ma dhihaysid ich antworte sie Frau Meier oo waxaa leedahay ich antworte ihnen Frau Meier oo kusoo jawaabaya Frau Meier soo marka waxaa kula tali lahaa qaybta koowaad waa qaybta ugu muhiimsan ee markaa luqadda bilaabaysid waxaa kula tali lahaa adigoonan walwal kale muujinin adigoonan ka fikirin waxa nominative-ka oo yahay waxa accusative-ka oo yahay wax dative-ka oo yahay kaliya inaad u baratid sida ay u dhisan yihiin in haddii nominative do oo dative-keeda oo yahay dia accusative-kan oo yahay dish sida u baratid oo aad sida yihiin u xifdisid waxa ay yihiin macnaha dhabta ah nominative accusative dative-ka cashiro kaleetood kale kusoo qaadana waxaa si fiican u fahmi doontaa markii aan qaybta noun-ka aan galno waa ku mahadsantiin daawashada daawateen haddii aad su-aalo qabtid haddii aad qaladaad ku aragtid dhammaanba ay la soo xiriiri kartaan inta kulankan kulan kale oo ka xiis badan ku kulmi doono anigoo khaliiji ah fi amaanillah